dugsiga hoose dhexe ee magaalada Xariirad ayaa saaka waxaa booqatay shabakada caalamiga Shinila News waxaana uu kurgalnay xaaladda ku gadaaman dugsigaasi hoose dhexe ee degmada Xariirad iyagoona sheegay in aanay haysan dayrkii oo dugsiga hoose ee dhexe ee magaalada Xariirad uu isagu qaybi ka maqan tahay dayrkaasi sidoo kale dugsiga hoose dhexe ee degmada Xariirad ayaa wax ka barta ilaa 7 kun oo arday oo iyagu kala barta culumo kala duwan sidoo kale waxa ay ka deeriyeen barayaasha iyo maamulka dugsigaasi suuligii ay galayeen ardaydaasi kuwaas oo guud ahaanba buuxsamay isla markaana qashin uu dhex buuxo waxayna ku tilmaameen in qurbo joogta iyo si degdeg wax looga qabto xaaladda dugsigaasi sidoo kale waxa ay macallimiintani ka deeriyeen dugsigii sare ee ardaydani marka ay ka baxdo fasalka 8aad ay gudbaysay dugsiga sare kaas oo guud ahaanba u xidhan bilaa macallimiin la'aan iyo bilaa dayr isla markaasina dugsigaasi ay haatan degan yihiin ciidan ka mid ah ciidamada Soomaaliland oo iyagu amniga ku suga magaalada Xariirad iyagoona baaq adag ugu diray qurbo joogta haddaba shir jaraa'id waxaa si wada jir ah u qabtay isku duwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Salal Cabdi Cali Wacays Faysal Xaashir Rayaale waa maamulaha dugsigaasi haddaba waxay ka sheekeeyeen duruufaha ku gadaaman dugsiga hoose dhexe ee magaalada Xariirad كمل جاي أبوي ترى أبلاه يتنادى بدش فرق أبي فرق أهل البين سقطنا من البين أي ترى أبلو أهلي يا بس فرقش بدش يوم وصلت هاي المرة عفوا سنة واحد كده بقى أعطيت اسم الديار مدوين في وراء ضيلة واحد كده بقى يتوبي يسمعنا من الكورة سنة سيكون بيروح يعطيني قصة الزيارة لما تكون هذا تشير الصلاة السعيدين برضه في السنة أنا صاير كمان تكون في السنة هذا سنة كان عطيني ميراث صحيح لو تفهمت هي سنة كمان مستوى العطان بعدين تقول الأفراد سنة على الشارع يقولون أفكار إلا لم يكن الصلاة طبعا لا تشير السكالة لكن سؤال كتير حوي ساعة الدوري الفراغ صار ومعلمين دي سياد شقيسة الشيء يقول لهم هيك عامل أحد من صراحة المعلمين هاي لولا يعني هاي مشاهد فيه من كل المعلمين هاي وعامل لا يكون سيدا ترتيب ما دام يقولي كارثة لأنه يقولي كان waxaan jecel lahay kuna celcelinayna waa qorshayna in ardayda ay wax walba uga wanaagsan tahay in dugsi sarana ay ku helaan degmadooda sababta waxaan dadka ka celcelinayna in ay macallimiinta ama guddiga shaqeynaya dugsiga inuu ku dhaqangeli lahayo ku geli lahayo ay naga soo caawiyaan midda kale aan ku darayo sidaa horey loo soo aragteen ama halkan ka inta deedka dugsiga hoosada waxa ka maqan ilaa qolka ku timid oo badan qayb horey waxa loo qastay hay'adda leeyahay international qaybna waxa naga caawisay hay'adda leeyahay laakiin qaybta qolka ku kamtira yaa ilaa iyo hadda banan oo ana wax laga qabanay inta kale sida waqtiga horey loo soo sheegay suuqyada dugsiga lahaa iyaguna dhawr sanadkoodii oo magaalada guri hadda gaar jahama isticmaalaa قلتي بنا كيف تقولي خشكان سيرنا إلا يوم تروح ولا لبلا أبدا شيئا سوريا الاستعمار مر لاهي سوريا لا ربنا نيجوا بياس كذا ترى سادة سيدنا ما وصلنا أنا أقول لك سوريا إن سوريا يدير كين حاجة سوريا ولا تعاون وصلها سوريا هذا وحكي شليط معلم ولا بقى يعني قارب من يسمى كذا من يسمى كذا أفر معادن وكملة
صدق فيديو جواب كمدي واحد ما هو يقاطعنا مجلس شمال لا كما قاطعنا ما هو يقصو قاطعنا مجلس تمر عيدة كذا وش كيا كوا نفترض كذا لا تعرف كيف يستفانوا ولا تطلع وزارة النرويج القادمية يجعل هذه أدوار مبارنة مثل كذا واحد ما من السبناء كاتب الله تقول له نروح يشوفي وزارة الخارجية يقول الزمن مرة عبد العزيز يصير هو في طوال أيوة كده الجماعة حتى يصير كده الوينية وزارة وحبرشة قبل كسر عبد العزيز علي وعيس والسلامتي إنسان دريق الله فراعي تاي أرضي أو بدن hablo huna aanay ku qurux badnay inay meel kala tagaan ee ay ku qurux badan tahay inay meeshoodan wax ku dhigtaan sida darteed baan u doonaynaa in naloo furo secondary-ga oo macallimiin iyadoo ay jirto ay wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada oo aad iyo aad ugu hanweyn yahay in guud ahaan Somaliland waxbarashada ay kor uga kacdo gaar ahaan gobolada Selen oo imka loo furay taasoo ay ku cadeynayso ay xafiiska ay ka furtay xafiiskii ugu horeeyay ay ka furto gobolada cusub oo noqday xafiiska gobolka Selen taasi waxay noo cadeynaysaa ahmiyadda ay noo hayso in ay waxbarashada gobolka ay kor u kacdo sidaa darteed waxaan idinka codsanaynaa wixii bini'aadam wax ma wixii idinka si kastaba ha ahaatee dugsiga hoose dhexe ee magaalada Xariirad ayaa waxaa wax ka barta jiilka yaryar ee ardayda iyagoona marka ay dhamaystaan sideedaadka ay qaarkood u ka ictimaan dalalka Saylac Djibouti Ethiopia iyo magaalada Hargeysa Cabdi Maxamed Cabdilaahi shabakada caalamiga Shinila News magaalada Xariirad.